hambalyo Paris Saint-Germain Germany taageerayaasha Arsenal maxay dhaheen penalty ana naga diiday kubadda cagta run ay rabtaa kubadda cagta cadaalad ay rabtaa haddii Arsenal Champions League ku guuleysan lahayd waxay ahaan lahayd taariikhda cadaalad daradii ugu weyneed oo ka dhacday aniga Arsenal fana kula hadlay yeel ama diidaday ku taala Arsenal uma qalmin Champions League inay ku guuleysatay Gabriel Magalhaes uma diidin Champions League sidoo kale Izana uma diidin Arteta u diiday Arsenal Arteta u diiday inay ku guuleysto UEFA Champions League Paris Saint-Germain Germany waxay ku guuleystay koob ay u qalantay Arsenal abrin iyo cadaadis ay waday laakiin uma imaan inay guuleysato markaan ku leeyahay Arteta uma imaan inuu guuleysto markaan ku leeyahay cadeenan ku haya Arteta weligeed lama arkin koobad final la ciyaaray oo possession 75 koox la imaanayso oo 25 koox la imaanayso weligeed ma dhicin Arsenal firfircoonay ku soo gashay 6 daqiiqo ugu horeysay gool ay heshay daafac ay gashay waa qaatay waayo waxa dhigi kara goosheeda daafacanay laakiin kambidii hore Arsenal oo dhan daafac ay ku dhameysatay waa qaatay waayo goolan leeyahay goosheeda inaan daafacada haqa u leeyahay Arteta markaas waxa laga rabay laba optionka koowaad daafac inuu galo go'aankiisa yahay uu qaatay daafac anagu galay sax gool uu leeyahay waa natiijo aad u weyn natiijo fiican oo daafac lagu gali karo waay Arteta waxay ahayd shaxdiis inuu u bedelo counter attack inuu u bedelo maadaama daafac uu ku jiro waxa la rabay xidiga counter attack ciyaaray isla markaas inuu keeno sida Gabriel Martinelli iyo Victor Gyökeres inuu keeno Kai Havertz iyo ninka la yiraahdo Kai Havertz iyo Leo Trossard inuu isku cunayeed maadaama Leo Trossard iyo Kai Havertz wax bandhiga meesha ku sameeyeen halka gool oo Kai Havertz oo alukusiga iska darbay iska dhilay mooye Kai Havertz wax bandhig uu ku jiray ma lahayn Leo Trossard sidoo kale garoonka inuu ku jiray inuu ka maqan yahay lama kala ogeyn waxa ku xabooneed Arteta labadaas xidig inuu bedelo Victor Gyökeres iyo Gabriel Martinelli keena si uu cadaadiska ugu bato kooxda Paris Saint-Germain Germany waayo waxay yihiin laba xidig oo kooxda haday garoonka ku jiraan daafacyada Paris Saint-Germain Germany uma saamixleen inay Arsenal weerar ku soo qaadaan oo xidigahaas waxay sameyn lahayn weerar degdeg ah ama counter attack ay sameyn kareen Gabriel Martinelli kubadaha oo Arsenal oo soo bixinaysay hadii Gabriel Martinelli markaas uu heli lahaa natiijo fiican oo ka keenay lahaa qof walba uu og yahay midaas Victor Gyökeres hadii uu garoonka ku jiri lahaa cadaadiska Paris Saint-Germain Germany Arsenal soo saartay ma soo saari lahayn daafacideeda baqdinay gal lahayd Victor Gyökeres waa weeriyaan xoogan sidoo kale darbad sawaariq ah ku xiran marka wax buu ka keeni lahaa Paris Saint-Germain Germany oo geeraan waxay sameyn lahayd dib u gurasho oo ah in xidigeeda gadaal ku celiso ama daafaciyada kooxda inay soo bixin hadii ay soo baxan daafaciyada kooxdana Arsenal faa'iiday u ahayd gool kale dhalin kartay laakiin Bukayo Saka Kai Havertz iyo Leo Trossard waa saddex aluuko ma jira hal xidig inuu kubad la inuu qabsado hor ula dhaqaaq karo ku jira hal xidig kubad inuu qabsado hor ula dhaqaaq karo ama dhaqaaq fiican sameyn karo ku jira waa saddex aluuko waxay rabaan banooni face to face inay ciyaaraan Paris Saint-Germain Germany Arsenal way jabtay oo daafac ay gashay face to face na dad uma wajahi karin Arsenal waqti haadirkaas Arteta waxa ku habooneed inuu doorto weerar degdeg ah xidiga kamera dhalin kara sida Nuno Madueke ninka la yiraahdo Gabriel Martinelli iyo ninka la yiraahdo Kai Havertz iska fadhiisay oo Victor Gyökeres ciyaarsay saddexdaas xidig waxay sameyn kareen weerar degdeg ah saddexdaas weeraryan waxay sameyn kareen weerar degdeg ah oo halis badan oo Arsenal wax unka keeni kartay waa goorma markii kooxda Arsenal jabsaneed oo gool lahayd kooxda Paris Saint-Germain Germany kulligeeda soo wada baxday Arsenal natiijay u ahaan lahayd hadii ay isbedel ka sameeyay laakiin Arteta khibrad ma lahan wax isbedel ah ma sameeynin xidiga degdeg sameyn kara weerar degdeg sameyn kara ma sameeynin bedel ah ma sameeynin daafacidiisu iska galay iyo saddex weerar oo aluuka ah waxa arki kartaa xidiga weerarka Arsenal u dirsaday ninka la yiraahdo Bukayo Saka penalty cadu galay referee naga wareejiyay runtii rabbiya dad ku jecel laakiin idinka waxa aragtiin halka penalty oo Nuno Madueke Bukayo Saka penalty
uu sameeyey koornada lasoo crossay gacan aad uu ka qaatay refriga xaq u lahaa markaas inuu penalty dhiga laakiin go'aanka refriga iskale sidoo kale Leo Trossard waxa arki kartaa laad goosho lagu laaday in alaabti Paul Pogba hadda koor Manchester United asoo yaaraysa u qabanay inuu sameeyo aragtaa laakiin kama hadlaysin halka penalty Arsenal barashara ay xitaa ninkaas wax challenge lagu sameeynin wax tackle ah loo ma kicin en physical ay isku haysteen raggaas physical oo garba sameeyay isku haysteen Nuno Madueke ninku ku dhacay kidii hore u sii dhaqaaq fiican uu sameystay markuu dhaqaaq fiican sameystay ninkana gadaalo garabka si laakiin wax challenge ama tackle oo lagu sameeyay ma lahayn wax anagu u orina oo anaga penalty aan naga diiday oo u shacbinina meesha ma yaalin hadii loo fiiriyo penalty-yaasha Arsenal laga qaleeyay ka badnaa taas isma qalma jira penalty-yaasha Arsenal laga qaleeyay ka badnaa midaas laakiin ma qaadanaysin war Arsenal waa idin la taayirnaa kubadaha daaqada inaad ka soo gishid ma ahane garoonka wax ka dhaca inaad fiirisid waa koox dhan weyn final ciyaaraysa oo hal gool ay dhalisay daafac ay gashay waa qaatay gooshiya laga keenay sababta daafac ugu sii jirna ma ii sheegi kartaa ii sheeg adaa ku weydina soo tan adiga dhahay kubadda agta cadaalad ma jirta penalty cadaan naga diiday adaa ku jirtide adaa ku weydina su'aashaas Arsenal daafac ay gashay maadaama gool lahayd waa qaatay gooshi waa laga keenay Arsenal ma ku habooneed inay natiijo raadisa ama inay daafac ku sii jirta wax hal awee inaan daafac ku sii jirna maxay koos gareynay faa'iido keenaysa maxay ahayd maadaama anaga wax natiijo aan lahayn halkii natiijo Arsenal lahayd ee hal gool ay ahayd halkii gool penalty looga keenay waa ciyaarta waa draw hal Arteta ma ku habooneed kooxda Arsenal in weerar sameeyo xidiga weerar maadaama xidigan laga adkaaday oo weerarka joogay oo laga taqluusay oo daafac ku soo wada aruureen kooxda inuu dhiig cusub ku soo biiriyo oo weerar qaadam ma ahayn miya markuu 86 Arteta weeraryahan keenay intee loo wadaa ragaas tarxiibta Kai Havertz weerarkii ku xumaaday weerarkii laga bedelay dhaxda way oo looga soo celinaa ninkan wuu jabay ee kooxda waxa uu keenay waayay wuu fashilmay waa la arkay toos ala door banaanka baa la geeyay ninkaas banaanka in la geeyay garoonkii dhaxda uu soo celi mid ugu horeysana Arteta fulinimada koow ayuu sameeyay ciyaarta intuusan bilaaban shaxdu ku soo galay fulinimay ahayd shaxda Arteta ku soo galay ma ahayn shax lagu guuleysanayo qof walbana wuu og yahay intan banasiiba ku soo gaanay wallahi isma dhayn ani Arsenal shaxadeeda ileen afkay ku soo gashay marka ark waxaan qorsheysay kaambi hore Arsenal in la kala tuuri doono iyo qaab ciyaareedkeeda laakiin adiga extra time ma dhamaysanay xidigaha dhiigooda noo xureen raga meesha ku dhintay de Gabriel Magalhaes Saliba goolhayaha Declan Rice xidigaha Arsenal dhiig u shubay iyo sidoo kale Christian Mosquera dhiig u shubay Arsenal Piero Hincapié ragan dhiigooda ku gaarnay inta kubad kuma gaarin ragga anaga Arsenal u ciyaar Arteta kuma gaarin raggan waa halyeeyay dagaal diyaar u ah oo hardan diyaar u ah laakiin waxay rabaan macallin dhiirigeliyo oo dhaha hore u dhaqaaqa waa sameyn kartina sameey macallin dhahay u baahan yihiin Arteta ma ahan geesi oo xidigiisa dhigi kara waa sameyn kartina sameey you can do it ma ahan warka joog ha isku gelina way idin dilayaan way idin khalaayaan baangadliyaal waa yartooyda saacabsi ku beeray goormay wax qabsanaya laabtu leeyahay Bukayo ku amraa inuu gadaal aado muxuu ka keenay ninka oo kooxdi yaa weerar u qaaday hadii halkii Bukayo oo garoonka soo gelis weeraryahan oo dhan Arsenal hal Bukayo ugu jiri Trossard wax uu yahay ma lahan wax uu qabanayo ma lahan Kai Havertz ha sheegin wax uu qabtay ma lahan halka gool oo ku shahada ku arkaysid aday ku taala laakiin hal Bukayo garoonka ku jiri Bukayo waxa ku amirtay inuu gadaal galo kooxda yaa u maqan shaxdu ku soo galay fiiri Arsenal dubi tare ma keenin Julian Timber yaa loo dhigtay Ricardo Calafiori yaa loo dhigtay Martin Zubimendi qad dhax fiican oo raacay darbad leh oo sidoo kale crossada ku fiican yaa u dhigtay yaa loo dhigay kooxdan waxay aad koox weerar Nuno Madueke iyo Bukayo Saka iyo Victor Gyokeres weerarka kala heed in laga keenay Nuno Madueke Bukayo Saka iyo Victor Gyokeres in koob weerarka laga dhigay ama Martinelli hata in laga dhigay laakiin ma sameyn marka wax u cala cashan meesha